kulan lagaga hadlayay aayaha dhallaanka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Stockholm ee wadankaasi. Maxamed Cabdulqaadir Daahir ayaa faafahinta warkaasi nooga soo diray Stockholm. kulan ay soo qaban qaabiyeen ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed in ka soo qayb galeen dhammaan waalidiinta cilmo oo diinka waxgaradka kala dhacay magaalada Stockholm. Ujeedkiisu ahaa carruurta Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay kuna koray oo qaar ka mid ah dilal dhaawacyo loo geystay taasoo wali dareen cabsi leh ku abuurtay. Kulankan ayaa yimid kadib markii dhaawaan laba wiil walaalo ah lagu dilay xaafadda Ringiby ee magaalada Stockholm. Gudoomiyaha ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed Habana Cabdulqaadir Aadan oo la hadlayay telefishinka caalamiga Soomaali Cable ayaa waxa magacayga waa Habane Xasan waxaan ahay gudoomiyaha ururka isbahaysiga ee Sweden. maanta halkan waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo aan isugu yeernay wadaadada magaalada, aqoonyahanka, maamooyinka, waalidiinta iyo aabooyinkaba oo aan kaga wada hadalnay sidii arrimaha dhibaatooyinka ummadda Soomaaliya ku dhacda aan uga hortagi lahayn. kuwa hadda nagu dhacay way nagu dhaceen laakiin kuwa soo socdana sidii looga hortagi lahaa. dadkii ka soo qayb galay doodaan waxay isku afgarteen si looga hortagi lahaa dhibaatooyinka taagan. hase ahaatee dhammaan dadkii halkaasi ka hadlay waxa hadalada ka mid ahaa waxaa halkan maanta ka dhacay kulan ma aragtay looga hadlayay dhibaatadii ka dhacday Stockholm oo looga tashanayay qaabkii dadka Soomaalida iskugu duubni lahaayeen oo wax u wada qabsan lahaayeen inay dadka Soomaalida dad matala ay sameystaan inay isku duumaan. khilaaf wadankeeni waa naga keenay wadamadaanuna keenay wadamadan haddana khilaafkii aan la sii wada nimid marka inaan gudina matala oo dawladda la xiriiro aan sameysano inaan dhalinyarada lala hadlaayo oo la rabo in wax loo qabto ayaga laftigooda kulan loo qabto. مقادس كلا وحول ماشي وان حرق ولا بس اللي يقول قادة مارتن بس مكرات القادوين كي فوحاس نوجره أنت وقاتي وأيضا وجهك قفت لكن مقادس وجه يقولها وجهك قفتي تتنا وين وينش كمل عند لف الريبة وقدم عينه لهم وعايمك ما حد يقصر فيهم بيجي وحاس لو سمي dumarka hooyooyinka maasha Allah khayr Allah siiyo aad shaqo aad badan baa haysan laakiin hal wax baad qaladeen aroosada habeenkii kowda aadaysan iska daaya hooyo aroos kow aaday gabadheeda wiilkeeda ma dhihi karto ma bixisa ma dhihi karto taas iyana raalli ahaada wax fact ah oo arkay weeye wadanka wax badan ka shaqeynay guriga xaaraan ay soo gasho ilmaha xaaraan la quudiyo waa baxaan diintu waa iga wada badisaan xaaraan waxaan ka leeyahay ayaa ku yiri gaalka ben shake yaa ku yiri khiyaan waalidiinta Soomaalida meeshan degan oo dhan ayaa waxaan isku nimid maanta isku kulminay waxaan isku kulmiyay isbahaysiga ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed iyo labada masaajid oo wada jira iyaga soo qaban qaabiyay oo ugu horeeyo ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed oo aniga aan ka tirsanahay waxaan isku keenay ummadda inay tiraanyada la wadaagaan dadkii dhalinyaradii meesha ku geeriyootay isla markaasna wacyigelin loo sameeyay waalidiinta degan Stockholm iyo Sweden oo dhan si looga bixi lahaa arrimahan oo kale inay mar labaad soo noqon. kulankan maanta goobtan Tennis Tref ka dhacay ee magaalada Stockholm wadanka Sweden wuxuu ku saabsanaa sidii waalidiintu ay ayahooda uga tashan lahaayeen maadaama dib iyo dhibaato weyni ay soo martay oo waqti aan dheerayn laba wiil oo walaalo ah lagu dilay magaaladan ayaa ummadii Soomaaliyeed meel walba ay joogeen waxa ay dareemeen culayska iyo dhibaatada ka taagan oo ay Soomaalidii ku sugan yihiin si arrintaas looga tashado ayaa xaggan la isugu yimid maanta dood wanaagsan ayaa dhex martay waxaana laga wada dooday sida arrimahaas wax looga qaban lahaa. gabagabadii kulankan ayaa waxa uu ku soo idlaaday jawi loogu talagalay iyadoo loogu ballamay kulamo kale. hase ahaatee waxaa soo badanaya dhibaatooyinka soo wajahaya waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha. Maxamed Cabdulqaadir Daahir, telefishinka caalamiga Soomaali Cable, Stockholm.